haddii aan samayn lahayn wax kastoo aan samayntiisa awoodno waxa aan samayn lahayn mucjiso, waxaa yidhi Thomas Edison. nolosha hadaf ma ka leedahay, mase jiraa qorshe ama barnaamij nidaamsan oo aad nolol maalmeedkaaga u diyaarsay si ay yididiilooyinkaada u rumayso? haddaba daawada muuqaalkeena maanta waxaan xoogga saari doonaa xadidaadda iyo ahmiyadda uu leeyahay hadafka. si aan muuqaalada caynkan oo kale u soo badino, waxaan kaa codsanaynaa haddii aad janalka kusoo biirin inaad kusoo biirto, haddii aad video ka heshanay inaad like saarto. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. in badan oo dadka ka mid ah nasiib daro noloshooda waxa ay ku luntahay yididiilo, laakiin ma lahan qorshe ku dhisan daraasad si ay yididiilooyinkaasi u rumeeyaan. taasi oo kalena waxa inoo caddaynaya tusaalahan soo socda. waxaa jiray 2 nin oo shaqaale ka ah mid ka mid ah shirkadka dhismaha. shirkaddii ayaa waxay u dirtay si ay u soo hagaajiyaan mid ka mid ah dusha sare ee guri ka mid ah guryaha. markii ay labadii shaqaale ay soo gaareen wiishkii ay dusha sare ku fuuli lahaayeen, ayay waxay indhaha ku dhufteen boor ay ku qoran tahay wiishku waa uu ciladaysan yahay. waa ay joogsadeen wax yar iyagoo ka fikiraya wixii ay samayn lahaayeen, laakiin si dhaqsi ah ayay ku go'aansadeen inay jaranjarada fuulaan. inkastoo uu guriga ka koobnaa 40 dabaq, way fuuleen iyagoo alaabtoodii dhabarka ku wata. dadaal fara badan kadib, ugu dambeyn waxa ay gaareen dusha sare. markaasuu mid walba ka kala fiiriyey. mid ka mid ah ayaa kii kale ku yidhi, waxaan ku hayaa 2 war oo kala duwan, midna waa mid farxad leh, midna waa mid xun. saaxiibkii ayaa yidhi, warka fiican ii sheeg marka hore. markaasuu ugu jawaabay, bishaaro, ugu dambeyn waxaan soo gaarnay guriga dushiisii sare. kaasi waa warkii fiicnaa. markaasuu saaxiibkii kalena ku yidhi, ii sheeg warka kale ee xun. markaasuu ugu jawaabay, fooqaani ama saqafkaani ma ahan kii la rabay inaan hagaajino. haddaba qisadaani maxaa looga jeedaa, maxaanse ka qaadanaynaa? nasiib daro, dadka qaar badan baa noloshoodu ay la mid tahay sida 2dan shaqaale oo kale. waa uu dadaali dididii, ugu dambeynna wax natiijo ah gaadhi maayo. maxaa yeelay? maxayse sidaasi ku dhacday? jawaabtu waxay tahay si fiican uma qorshaysan inta aanu shaqada ku dhaqaaqin. naftiisana uma samaynin barnaamij uu kaga jawaabayo su'aalahan soo socda. maxaan doonayaa marka hore? sidee baanse waxaan doonayo u samayn karaa? qisadaani waxay dib inoogu celinaysaa su'aashii aan hadalkeenna ku bilaabnay oo ahayd, noloshaadu ma leedahay hadaf ay doonayso inay ka guungaarto oo ay xaqiijiso? ma garanaysaase meesha aad u socoto? jaamacadda Yale ee ku taala Mareykanka waxay daraasad ku samaysay arday dhigata kulliyadda maamulka iyo maareynta, kuwaasi oo qalin jabiyey 10 sano ka hor. waxay ogaadeen in 83% ka mid ah ardayda daraasada lagu sameeyey aanay noloshoodu lahayn hadaf cad oo xadidan. waxaa muuqatay inay aad ugu dadaalayaan si ay u noolaadaan oo ay naftooda iyo ehelkooda ugu diyaariyaan daruuriyaadka nolosha. dhinaca kale waxay ogaadeen in 14% ka mid ah ardaydaasi ay ahaayeen qaar leh hadaf cad, laakiin hadafyadaasi aanay ahayn qaar qoran oo leh qorshihi lagu xaqiijin lahaa. markii la eegay dhinaca waxqabsiga, waxaa la ogaaday inay 3 jeer ka nolol sareeyeen kuwii hore. ugu dambeyn, 3% oo ardayda ka mid ah waxay ahaayeen qaar leh hadaf xadidan oo cad, kaasi oo weliba ay qoreen. haddana ay u dejisteen qorshe cad oo u suurtagelinaya xaqiijinta hadafkooda. markii la eegay waxqabsigoodana, waxaa la ogaaday inay 10 jeer ka sareeyeen kuwii hore. sida daraasadan ku cad, waxaad arkaysaa ahmiyadda ay leedahay xadidaadda hadafka iyo dejinta qorshaha nolosha. waxaa kaloo inoo muuqata ahmiyadda ay leedahay inaan yeelano go'aano iyo doonis aan ku xaqiijinayno hadafka aanu doonayno inaan gaarno. haddaba daawade, halkan waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa 5 ahmiyad oo ay leedahay inuu qofku hadaf yeesho. tan koowaad, si aan nafteena u xakameyno. markuu ruuxu leeyahay barnaamij dhammaystiran oo nidaamsan si uu hadafkiisu u xaqiijiyo, waxa uu dareemayaa inuu naftiisa maamuli karo. waxuuna yeelanayaa awood uu ku bilaabi karo shay walba oo u qorshaysan noloshiisa. awoodda uu leeyahay ruuxa qorsheeya noloshiisa waa mid aad u weyn, waxayna ka caawinaysaa inuu ka gudbo caqabadooyin fara badan, taasi oo u suurtagelinaysa inuu arko wax badan oo dadka kale ka qarsoon. aragtida uu arkaya hadafkiisa waxa ay siinaysaa awood dheeraad ah oo keenta sugnaansho iyo degnaansho uu ku wajahayo dhibaato kasta oo ka hor timaada. dhibaatooyinka noloshana ka dhigta mid uu si dhib yar uga gudbo. haddaba daawade, maxaa ka qurux badan inaad xaqiijiso wax dadka oo dhani xaqiijin waayeen?
Tan labaad, kalsoonida nafta. Marka aad qorato hadafkaaga oo aad dejisto qorshahaaga, waxaad arkaysaa in kalsoonida naftaada si weyn u kordhayso. Kalsoonidana waxay la kordhaysaa mar kasta oo aad naftaada maamulkeeda kororto oo aad awood u hesho xaqiijinta hadafkaaga. Waxayna ku horseedaysaa horumar dheeraad ah, taasi oo kaa dhigaysa ruux ku habboon xaqiijinta natiijooyin waaweyn. Ruuxa naftiisa ku kalsoon ma jirto cid ka hor istaagi karta oo ka joojin karta waxa uu doonayo, sida uu yidhi Archimedes. Iyo calaamada meeshaan u socda waxaan kuu dhaqaajin dhulka. Tan saddexaad, saraynta nafta. Ruuxa qiimihiisa waxay ku xiran tahay kolba waxa uu xaqiijiyo intay leeg tahay, oo marka uu hadaf xaqiijiyo haddana mid kale u sii gudba. Xaqiijinta hadafka waxay ruuxa ku abuuraysaa ixtiraamka naftiisa iyo qadarinteeda, iyo inuu rumaysto awoodihiisa. Waxaad arki doontaa in caqabadaha ku soo wajaho ay xamaasadaada kiciyaan, si aad qorshe fiican oo kale u dejisato oo maskax furan oo kale ugu fikirto, taasi oo kaa caawinaysa in maskaxdaada si ballaaran u fikirto oo fikirkaagu furmo. Tan afaraad, maamulka waqtiga. Marka aad xadido hadafkaada, waxaad arki doontaa in naftaada ay baahi u qabto inaad nidaam ku socoto. Marka aad dejiso waqti go'an inaad ku xaqiijiso hadafkaada, waxaad arki doontaa inaad tahay mid aad ugu kuurgala shaqada uu qabanayo iyo inaad waqtigaaga si fiican u maamusho, adigoo ka fogaanaya inay daqiiqad keliya kaa lunto ama kaa beerdarowdo, iyo inaad waqtigaaga ku lumiso waxyaabo aanan faa'iido lahayn. Tan shanaad, noloshaada oo aad ku raaxaysato. Qorshe la'aanta nolosha waxa uu kaa dhigayaa sida adigoo ku jira xaalad degdeg oo kale, shay walbana waa uu isdhexgelayaa oo isku dhex daadanayaa. Laakiin marka aad qorshe leedahay, arrinku si weyn ayuu uga duwan yahay marka aad qorshe la'aan tahay. Maxaa yeelay qorshuhu wuxuu kaa dhigayaa inaad noqoto qof miisaaman oo nidaamsan oo leh tamar iyo awood sare, taasi oo keenaysa inaad nolol deggan oo farxad leh ku noolaato. Intaas ayuu inoogu egyahay ciwaankeena maanta. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaa inoo balamaa muuqaalka xiga insha Allah.